بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولنا هبة محله marka xigta magacaygu waa Qoraa Cabdifataax Miro Nuux waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijka Weheli Xiliga han kale waxaan ka qayb qaadanayaa mowduuca cilmiga iyo aqoonta waxaan ku bilaabi doonaa waxa jira saddex arrimood ama saddex mowduuc oo isku sidkan Soomaaliyahan aan macna buuran aanan kala sareenin laakiin cilmi ahaan saddexdoodu saddex macno oo kala duwan kala xambaarsan yihiin waa cilmiga aqoonta iyo waxbarashada waxbarashadu waa ta kugu hagaysaa cilmiga iyo aqoonta aqoontuna waxa weeye waa ta isbedbedelaysa ama flexible-ka aanan haynin deganiin ee meel kale taan ku taagnayn laakiin waa ta hadba marba nooc isku bedelaysa weeye imika tusaale ahaan aqoonta ka waxay noqonaysaa laba loo geeyay ama laba loo dhuftay tan ilaa iyo waqtigii xisaabtu ay bilaabantay intaas un bay taagnayd laakiin cilmigu isagu isbeddelaa laakiin aqoontiisu isma bedesho waxa jira cilmi iyo aqli wax la yiraahdo aqliga ayaa ka daawinaa cilmiga aqliga waa lagu dhashaa oo Ilaahay baa bixiya cilmigana waa la kororsadaa oo siyaabo kala duwan ayaa loo kororsadaa cilmiga waa la bartaa aqligana waa la koriyaa aqliga waxa lagu koriyaa aqoontana waa la kororsadaa oo siyaabo kala duwan ayaa loo kororsadaa intaa kadib waxaan dul istaagi doonaa qofka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka waxaan dul istaagi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay qofka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka marka laga sheekeynayo muhiimooyinka ama awoodaha ilaahay qofka bini'aadamka uu siiyay dadku waxay isku jiraan waa afar waa qof awoodiisa aan garanaynin aanan isticmaali karin qofkan tusaale ahaan waxaad uga sheekeynaysaa waxyaabo ka baxsan awoodiisa qofkani waxaan ma garanayo cilmi aqoon ma laha mana isticmaali karayo talabaad qof awoodiisa garanaya laakiin awoodiisa aan isticmaali karin wuxuu garanayaa aayadaheedu in tu'uddu nicmatallahi la tuhsuha laakiin wuxuuna garanay awoodiisa siduu isticmaali lahaa tasaddexaad qof awoodiisa garanaya laakiin awoodiisa isticmaali karaya taafraadna qof awoodiisa garanaya awoodiisa in ka badan isticmaali karaya marka halka markaan taaganahay qof awoodiisa garanaya awoodiisa in ka badan isticmaali karaya waxa awoodiisa in ka badan ku isticmaali karaya cilmiga iyo aqoonta Ilaahay siyaadu sidiisa u isticmaalo wuxuu noqonayaa qof awoodiisa in ka badan isticmaali karaya tusaale ahaan qofka cilmiga iyo aqliga u saaxiibkiisa saddexun buu nool yahay dadkii hore uu la nool yahay oo wuxuu kula nool yahay fikirkooda iyo afkaartooda ayaa uu ka haystaa rated document cadaana dadkan imika uu la nool yahay physical ahaan iyo appearance ahaan buu kula nool yahay labadaas oo uu helo ayaa uu sii saadaalin karayaa mustaqbalka wuxuu iman lahaa oo imika tusaale ahaan laba loo geeyay afar baa ku soo baxaysa marka labadaas uu isku geysto ayaa u soo baxaysa jawaabtu ama say u noolaayeen dadka si u noolaan doonaan dadka dambe sidoo kale waxa jira hadaba maadaama cilmigu maadaama uu koriyo aqliga waxa jira sidoo kale cuntooyin iyo kuna koriya maskaxda ama aqliga koriya cuntooyinkaas waxa kamid ah jaamacado fara badan ayaa research badan sameeyay cuntooyinkaas inaan doonayaa inaan soo gudbiyo sidoo kale maskaxdu waa beer oo kale beertana wixii lagu rito ama iniyaha lagu rito baa hadhow la munaafacsada oo dib u soo baxa marka maskaxdaada hadba inta iniya aad ku rito maskaxdaada ku soo sideynaysaa sidoo kale maskaxda ama aqligu waxa weeye waa bilab oo kale bilabtana waad aragtaa waxay birtii xun iyo birtii wanaagsaneed u dhaweysaba way soo jeedataa oo way ku soo dhigtaa way nuugtaa marka maskaxdaadu waa noocaas oo kale marka maskaxdaadu hadii mar allaala mar kasto oo madagtay update ay u baahato hadii aad ku soofayso dhagax adag ama bir adag aad ku soofayso maskaxdaadu waxay noqonaysaa maskax mira dhalkeenta soo kale hadii ay maskaxdaadu aad u weedo dhagax adag oo ku soofayso ama bir adag oo ku soofayso maskaxdaadu way si afbeeshaa marka maskaxdu waa sida midida oo kale inta kadib waxa jira daba cuntooyin u fiican maskaxda oo maskaxda loo isticmaali karo soo kale imika jaamacadda Coventry University ee dalka Ingiriiska ku taalay waxay soo saartay research qofka hadii aroortii marka uu tooso markuu caadsiyaa markuu walwaliyo warbahaar badan ay haystaan hadii uu isticmaalo calaalsiga xanjada hadii uu isticmaalo qofka boqolkiiba 50 caadiska ama walwalka haysta uu ka booda soo kale waxay yiraahdeen iyagoo research-kooda si tixraacaya ayaa waxay yiraahdeen xanjadu waxay furfurtaa fahanka qofka boqolkiiba 60 ay furfurtaa mar alaama kasto saadu qanta maskaxdu ay sii furfurmaysaa soo kale rag filosofariina oo medicalka si wanaagsan ku takhasusay oo jaamacado badan oo India ka soo baxay university ay kamid ahaayeen iyaguna waxay soo saareen research qofku markuu madaxu aad u xanuuno ama madaxiisu uu degi waayo inuu qofkaas u isticmaali karo liindanaanta waad aragto waxay leedahay diir adag oo blue ay leedahay diirka mar alaala mar kasto aad qaniinto
fariinta si toosa ay maskaxdaada ugu diraysaa qaraarka maskaxdaada sida tooska ugu dhacayayna waxa uu yareynayaa xumadii ama xanuunkii badan ee ku haystay sida halka dambana researchkooga ay ku sheegayeen in cuntada qaboobi ay 90% ay jabiso xumada qofka madaxa ka haysta sidoo kale nin THC la yiraahdo oo haysta shirkado waaweyn oo mid ku takhasusay soo saaritaanka dawooyinka heelbarku isaguna wuxuu researchkiisa ku soo saaray in cuntada ay ku badan tahay dawada ay fitamiinaadka la yiraahdo chatasin in ay jirka si hoose ay la shaqeeyaan jirkana ay nadiifiyaan oo ay ka saaraan waxyaabihii xumaayee excretion systemkii ay si toos u nadiifiyaan halka uu researchkiisa ku sheegay dawada sinkida la yiraahdo cuntada sinkidu ay ku badan tahay inay xumada qofka ay jabiso halka uu ku sheegay researchkiisa in cuntooyinka ay ku badan yihiin double cellulose iyaguna si toos ah u dhisaan lafaha qofka bini'aadamka soo kale researchka ayaa wuxuu ku sii sheegay in calcium iyo calcium 4 ciyaalka heeree dhallaanka ay wanaagsan tahay marka ay korayaan inta anigoo ka soo baxay waxaan si toos ah u kala doonaa haddaba qofku markuu cilmiga aqoonta u leeyahay dunida uu ku nool yahay nooc ku noqdo ama dunida uu ku nool yahay lagu aasaya qofkani dunida uu ku nool yahay waa lagu xusaa oo waa lagu xasuustaa waa lagu farxaa oo waa lagu faanaa waa la tiigsadaa oo waa la tilmaamsadaa wadada markay marayaan baa la isku tilmaamayo la yiraahdo dadkaas waa nin aqooyahana ninkaas cilmi ayuu leeyahay mar allaala markuu cilmigiisu salo u kordhana dadka ayaa ku yaaca oo nolosha ayaa wax laga weydiiyaa dadkuna waxay ugu yeeraan ninkaas waa haliyey ama waa hado ama waa hormood sidoo kale qofka cilmigiisu markuu yar yahay taa carsigiisa waa laga ordaa waa la wiiqaa waxana loogu waa haldaa ama wax loogu yeeraa waa hiliib ayaa loogu yeeraa oo waa labada kelmadood ee sida tooska looga caawiyo sidoo kale qofku markuu cilmiga aqoonta badan u leeyahay dabiicadaha uu yeelan karo waxa kamid ah wuxuu noqdaa qof dhabar adag ayaa noqdaa qof mayar adag ayaa noqdaa qof maskax adag ayaa noqdaa wuxuu noqdaa qof lagu tilmaamo meesha uu ku dhaweyn uu ku dhalaalo ayaa qofka lagu tiriyaa marka qofku cilmiga aqoonta markuu leeyahay faa'iidooyinkaas oo dhan ayaa leeyahay qofku cilmiga aqoonta markuu leeyahay waxa uu yeeshaa riyooyin iyo hadaf cadcad ayaa uu yeeshaa oo dadkiisa iyo dilkiisa iyo diintiisa wuxuu ugu qaban karaa yeesha qofku markuu cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay waxa uu noqdaayo uu hibdaaca nolol cusub ayaa uu hibdaaca wuxuuna ka koraa xasadka xumaanta iyo xiqdiga sidoo kale wuxuu ka koraa cabashada ciiltanka uqdada iyo xanuunka sidoo kale aqoonta waxa uu maraa daal diihaal daranbaabi darandoor iyo diif ayaa u maraa halka isagoo markaa intaas uu maro marka ugu dambaysan uu la yimaado dadaal iyo duco iyo digri uu la yimaado kan ku soo gabagabeynayaa hadda iyo hadhow mar kasta iyo meel kasta u heeli halyahan kale sidoo kale waxaan si gooniya ugu mahad celinayaa Mawlid oo injineer Mawlid oo isaguna ka qayb qaatay duubida habeynta iyo hirgelinta fiidiyoga